Okay. marmarka qaar in aad suuliga tagto waad dhibsataa iyadoo hurdo macaan aad ku jirto. Sanadu markay ahayd 2016 bishii shanaad 26 inuu hurdo ka soo kaco oo uu suuliga tago waxa uu ahayd badbaado. Harrison Okeni oo da'diisu ahayd markaas 29 jir si la yaab leh ayuu uga badbaaday markab la gudoomay. Sida adduunka dhalinkood og yahay waa qofka kaliya ee 3 cisho badda hoosteeda ku jiray. Maxaa ku dhacay tol markuu go'aankaas qaatay soo ku badbaadiyay nolosha Harrison? laakiin inta aanu muuqaalka gudbin waxa ka codsanaya like iyo subscribe iyo share mahadsanid. gacanka badweynta ee Atlantic koonfur bari waxaa lagu magacaabaa inuu qani ku yahay waxa lagu garan og yahay inuu qani ku yahay shidaalka halkaas oo markabku shidaalka buuxaan. sanadu markay ahayd 2013 bishii shanaad 26 meel 30 kiiloomitir u jirta magaalada dhaho Scavos ee dalka Nigeria ayaa waxa ka dhacay mawjado ama hirar aad u badan taas ku keentay markabkii uu saarnaa Harrison inuu markabkii gudoomo. haddaba badda Nigeria waxa ku badan burcabadeed taasoo halis ku keenta mar walba dadka shidaalka ganacsiga ee ajaanibta. haddaba dadkaas maraakiibta waxa ay sameeyaan markay si saxanaya ay qolkooda hoosta ka soo xidhaan. tiradooduna waxay ahayd 12 qof taasoo ku keentay dadkii markabkaas ku jiray in ay baxsan kari waayaan. markuu markabka gudoomay waxa ay ahaayeen kuwo wada hurda marka laga reebo ninka cunto kariyaha oo markaas dharka hurdada xidhnaa isagoo suuliga galay. markabkii ayaa waxa uu quusay biyaha si degdeg ah. Harrison oo ah ninka cunto kariyaha ayaa waxa uu isku dayay inuu albaabka suuliga furo balse biyihii ayaa ka awood batay uu kari waayay. dhowr jeer marka uu isku dayay biyihii ayaa si awood leh ugu soo galeen suuligii taasoo dhibaato u geysatay Harrison. biyihii ayaa waxay ku tuureen suuli kale ku dhawaa ama ku dheganaa taasoo ku sababtay madax xeer iyo xoogaan nabar ah. laakiin waxa uu ku badbaaday si la yaab leh markuu qabsaday meesha suuliga ee lagu fadhiisto. suuliga dhererkiisu waxa uu ahaa 2 mitir iyo badh. markabku waxa uu quusay 30 mitir waxa uu ku dhacay badda si gadgadoom ah oo si degdeg ah. markuu markabka quusay meesha waxaa yimid gargaar ay ku jirto helicopter iyo dhowr doomood. isla markii waxay soo heleen meesha ay doonta ku gadoontay dadka wax badbaadinayay. markii ay badda gunteeda ugu tageen markabkii waxaa dareemay in ay joogaan agagaarka markabka Harrison kaasoo gidaarka markabka garaacayay laakiin nasiib xumo way maqli waayeen. kooxda badbaadada ahayd uguma soo talagelin in ay meel badda gunteeda soo wax badan si joogaan. markiiba way isaga tageen meesha waxaas ma sii joogin. isla markiiba waxa la joojiyay badbaadintii taasoo ay ka waayeen wax cadeyna in ay dad joogaan markabka. markii laga joogo hal cisho oo ku jiray Harrison suuliga waxa isku dayay in awoodiisa oo dhan inuu kaga baxo meeshaas. waxa uu dabaashay xafiiska ama qolka laga maamulo ee markabka kaasoo dhererkiisu ahaa 1 mitir iyo badh. qolkaas ayaa hawo iyo wuxuu ka helay meel uu fadhiisto. markii hore meeshu aad bay u qaboobay taasoo isaga dhibaato ku keentay. bisha shanaad gacanka badweynta Atlantic xagga sare ee heerkulka waxa uu gaadhaa 27 laakiin Harrison waxa uu ku jiray badda gunteeda taasoo ku sababtay inuu ku dhaxmado meesha. dharku xidhnaana way ku dulqoyeen oo wuxuu noqday qof dharkiisu macnaha hadii aanu adkeysan karin xataa qabowga awoodiina way ka tagtay. waxa uu isku dayay inuu raadiyo qalab uu ku furo alwaaxda ku xidhan qolka soo isku dul dhigo uguna fadhiisto taasoo noqonaysa nasasho. Harrison waxa uu ahaa mid gaajoonay oo haraado oo dhaxmoonaya mar walba uu boqo waxa uu ku ducaystaa in laga badbaadiyo meeshaas. waqti markii ka soo wareegtay waxa uu soo ureebiyay taasoo u maleynay asxaabtiisa dhintay. waxa uu maqlay codad libaax badeed oo cunaya midadka asxaabtiisa dhintay taasoo cabsi ku sii abuurtay Harrison. markii xaaladdu saas ahayd waxaa yimid markab lagu magacaabo Levek Tokan. naakhudihii markabka Levek Tokan wateen iyo shaqaalihiisii la socday ayaa waxay ogaadeen hawshan inay tahay hawl adag waayo markabku waxa uu gudoomay si gadgadoom ah. xaggiisa sare ayaa waxaa jirtay xagga hoose xaggiisa hoosena waxaa jirtay xagga sare. Harrison ayaa waxa uu maqlay shanqar dadka isaga badbaadinaya oo tooshash biyaha ku dhex wata oo wax raadinaya. dhankay joogaan buu aaday balse isagu waxa ma arko meeshu madow bay ahayd. gacmaha isagu wax ku raadinaya gacantiisu waxay qabatay gacan kale oo dhaqdhaqaaqaysa taasoo cabsi ku sii abuurtay. waxa uu moodayay gacan mid oo dhaqdhaqaaqaysa balse wax ahayd mid kamida dadkii wax badbaadinayay gacantiisa.
Markii la ogaaday meeshuu ku jiro Harrison, waxaa caddaatay inuu ku jiray 60 saacadood ku dhowaad. Markay heleen, waxay dhaheen meesha wax badan kuma sii jiri karo. Hawo xumo awgeed waxaa la siiyey biyo uu cabo iyo qalab oxygen oo lagu xidhay si uu hawo u qaado. Waxay ula macaamileen sidii inuu ka mid yahay iyaga. Waxay u xidheen dharka dabaasha, laakiin waxay ka baqeen markuu banaanka u soo baxo inuu naxo, taasoo naftiisa halis ku keeni karta. Laakiin waxa isagu ahaa mid degan. Harrison waxa uu mooday inuu 1 cisho ku jiro badda gunteeda, balse markii loo sheegay inuu 3 cisho ku jiro, wuu isku naxo oo khalkhalay. Waxaa la geeyey dhakhtar. Dhakhtarkaas ayaa waxa uu joogay 1 cisho iyo badh. 12 qof ay markabka la saarnaa waa la waayay, marka badbaadadiina saas lagu joojiyay. Harrison uu ka soo caafimaaday dhibaatadii meesha ka soo gaadhay. Waxa uu ku soo laabtay magaaladiisii oo lagu magacaabo Warri oo ku taal Nigeria. Magaalka waxaa loo geliyay naftiisa inuu sixir madow isku badbaadiyay. Markii ay ka soo wareegtay muddo, Harrison waxa uu laabtay shaqadiisii oo ahayd kognimo, balse imika waxa uu ka shaqaystaa beriga. Waxa uu bal naftiisa ka qaaday in uusan shaqo u tagi doonin badda. Adi maxay kula tahay badbaado u badbaadi Harrison? Marunba in lagu dhex noolaan karo biyaha hoosteeda 3 cisho suurtagal may tahay? Waxaad nala wadaagtaa waxaad ka qabto arrinkaas. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.